kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada qaybtii 15aad ee barnaamijka taxanaha oo ku eegnay nolosha Amiirka Cas oo ka mid ahaa saraakiishii sirdoon ee ugu qatarsanaa ururkii xorinta Falastiiniinta ee Fatah. barnaamijyadii kan ka horeeyay waxaynu ku soo qaadanay hawlgalladii bacsashada Amiirka Cas, waxaana ka mid ahaa hawlgalkii ay Mossad ku khaarijisay ninkii mudalabka ahaa ee ku khaladay Amiirka Cas. maantana waxaynu eegaynaa qaybtii ay ku lahayd basaasadii reer Urdun ee Amina al-Mufti bacsashada Amiirka Cas. filashadaasi Mossad ka raacday hawlgalka mudalabka ay ku dishay waxa uu qasab ka dhigay in ay xisaabteeda dib ugu noqoto. waxa ay bilowday hawlgalkii abid ugu ballaanaa ee muuqaalka Amiirka Cas ku raadinayso, iyadoo oo markan go'aansatay in ay si toos ah u abaarto dadweynaha ay Mossad qorshahan cusub u adeegsatayna waxa ugu muhiimsanaa Amina al-Mufti. waxay ahayd gabar reer Urdun ah oo qoyskeedu Israahaan ka soo jeedo qowmiyadda Sharaakiska ee bariga Yurub. waa qowmiyad badankeedu muslim ay yihiin oo ku filaqsan dalalka bariga Yurub, gobolka Shaam loo yaqaano ee Carbeed, Masar, Turkiga iyo meelo kale. nolol raaxo iyo kolkoolin ah oo qoyskeedu ay ku soo barbaariyeen ayaa lumiyay, waxaase u raacday cadho muurtay oo ay ka qaaday wiil Falastiini ah oo jacayl carruurnimo ah kaga baxay. dhaqan lum badan oo ay ka qaaday nolosha Yurub oo qoyskeedu ay waxbarasho ugu direen. guuldarro ay kala kulantay waxbarashadii oo ku abuurtay wejigabax iyo niyadjab ay xitaa ugula soo noqon kari weyday waddanka Urdun. cadaadis bulsho iyo wiil Yahuudi ah oo ay jeclaatay tabalahaasi adduun ayaa isu biirsaday Amina oo da'yar. midda kaliya ee ku fara adeegtay waxa uu noqday in ay guursato wiilka Yahuudiga ah ee isjeclaadeen. waxa ay filaysay inuu xallin doono dhibaatooyinka haysta oo dhan. markii ay wiilkan guursatay muddo gaaban kadib waxa uu ku biiray ciidamada cirka Israa'iil, kadib markii iyadu ay sidaasi ku dirqisay, iyadoo oo doonaysa inay Israa'iil u guurto si ay Carab uga sii fogaato. Moshe oo ahaa ninka ay guursatay ayaa la waayay kadib markii diyaarad saahanaha uu waday ay kula dhacday buuraleyda u dhaxaysa Israa'iil iyo Suuriya. dibna raq iyo ruux midna looma helin. nacaybkii Carabta oo ku sii batay iyo nafteeda oo ay ku harraantay inay sabab u ahayd dhimashada saygeeda, maadaama oo ay ciidamada iyadu ku dhiirigelisay, waxay sababeen inay qaadato go'aan ah inay aargoosato. Israa'iil oo taa ka faa'iidaysanaysa waxa ay ka dhigatay basaasad uga hawlgasha dhulka Lubnaan ee Falastiiniinta waxay iska caabintu ay saldhigyada ku leeyihiin. labada hawleed ee ugu muhiimsanaa ee loo diray waxay ahaayeen in ay keento xogaha la xiriira hawlgallada Falastiiniinta ee Israa'iil ka dhanka ah, kuwa ay naftooda hurayaashu ku galayaan gudaha Israa'iil iyo kuwa danaha Yuhuudda ee Yurub lagu beegsanayaba. Mossad waxay xiisaysay inay hesho magacyada saraakiisha Sebtembarta madow ee uu Amiirka Cas ku beeray qaaradda Yurub sida ay u raadsadaan danaha iyo mas'uuliyiinta Yuhuudda. waajibka labaad ee Amina la saaray waxa uu ahaa inay mar uun soo hesho sawirka runta ah ee Amiirka Cas. Amina al-Mufti waxa ay Lubnaan ku joogtay in ay tahay dhakhtar reer Urdun ah oo shahaadada sare ee PhD-da ku sidata caafimaadka dhimirka iyo dabiibka xaaladaha nafsiga ah, diyaarna u ah in carabnimada awgeed iyo cilmigeeda waayo aragnimo ay ugu adeegto danaha walaalaheeda reer Falastiin. Amina oo ka faa'iidaysanaysa fursadahaasi tirada badan ee u saamaxaya dhexgalka madaxda iyo hay'adaha Falastiiniyiintu, waxay xidhiidho badan la yeelatay qaybo kala duwan oo ka mid ah hay'adaha Falastiiniyiinta, gaar ahaan waaxda caafimaadka. waxaa kale oo aad ugu xidhantay xafiiska hogaamiyaha Falastiiniyiinta Yasser Arafat. inkastoo uu ahaa qof aad u furfuran oo dad jecel, qisada Amina si gaar ah ay u soo jiidatay Arafat. waxa uu arkayay gabadh iyada oo da'yar, haddana cilmigeeda ugu deeqay u adeegista Falastiiniyiinta. Amina waxa kale oo xidhiidh fiican la samaysay cid kasta way u arkaysay ama Mossad u sheegtay inay caawin karto hawlaha sirdoon ee laga rabo. tusaale ahaan qolyaha ku lug leh shirkadaha socdaalka iyo isgaarsiinta si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta iyo si ay u dhageysato telefoonada Amiirka Cas marka ay hesho. dadka ay Amina sida aadka ugu adeegsatay hawlaheeda sirdoon waxaa ka mid ahaa Maroon al-Hayik oo ahaa Lubnaani ka shaqeeya shirkadda isgaarsiinta ee Lubnaan. waxa uu sahlay in uu ku xidho telefoon xasaasi ah oo ay ku xiriirayeen mas'uuliyiinta Falastiiniyiintu. waxa kale oo ahaa qofkii Amina baray wejiga Amiirka Cas. June 1973 ayaa Amina al-Mufti si kadis ah u baratay Amiirka Cas. xilliyadaasi waxa uu weli ku jiray ayaamihii farxadda arooskiisa Georgina Rizaq oo 22 sano oo kaliya jirtay. waxay ahayd gabadh Masiixiyeed ah oo u dhalatay dalka Lubnaan. isla sanadkaasi ayaana lagu maamusay taajka quruxda ee haweenka adduunka. goor subaxnimo ah ayaa Amina iyo al-Hayik oo jooga hotel ku yaala xilliga badda oo dabaasha iyo leyrsiga loo yimaado xilliyada xagaaga, ayaa uu mar kaliya saaxiibkeedii al-Hayik soo horfadhiyay, indhaha ugu ishaaray tilmaanta nin dhinaca barkada dabaasha ka xigay. Amina sawir indhaha ah oo aad u buuxa ayay aroortaasi ka qaadatay Amiirka Cas. waxay adeegsatay xirfadii sida heerka sare ahayd ee maskaxdeeda loogu soo carbiyay. waa in qofka ama shayga ay aragto ay si fiican ugu sawiran karto maskaxdeeda si ay dib uga xasuusato dhammaan tilmaamihiisii, kadibna xeeladayaasha farshaxanka iyo sawir gacmeedka uga caawiso in ay sawiraan qofka ama shayga ay soo aragtay. maalintan intaas ayay kala tagtay hotelka. habeennimadii marka ay warbixinta gaarsiisay Tel Aviv, waxaa loo soo sheegay in ay qunyar socoto. waxaa looga digay khatarta Amiirka Cas.
iyadoo oo lagula taliyey inay aad u kala fogeyso ballamaha ay ku tegayso hoteelka ay ku soo aragtay, isla markaasina ay si aad ah uga feejignaanayso jidka ay u marayso barashadiisa. xoga ay Aamina ka qotay nolosheeda basaasnimo muddadii ay maxbuuska u ahayd Falastiiniyiinta waxa ay ku sheegtay in Amiirka Cas uu isagu bilaabay isbarashada kadib markii uu dhowr maalmood hoteelka ku arkay. waxaa jira dareenno ah in shakiga gabadhan uu ka qaaday uu sabab u ahaa in uu barto, laakiin Aamina waxa iyadu aaminsanayd inay ahayd barasho caadi ah oo la xidhiidha dabeecadaha shabeelnaagoodnimo ee Amiirka lagu xaman jiray. barasho dheer oo isagu markii hore isugu sheegay ganacsade Falastiini ah ayaa u bilaamatay Aamina oo si fiican u garanaysay ninka ay la macaamilayso iyo Amiirka Cas. waxay ahayd isbarasho Aamina u horseeday laba guulood iyo guuldaradii ay taariikhda kaga baxday. Mossad waxa ay kaga kasbatay kalsooni iyo kalgacal aad u weyn oo gaarsiiyey heer ay noqoto qofkii Carabeed ee abida Israa'iil taalla xasuus reeb ah u dhisto, iyadoo oo weliba uga dhex dhistay xarunta sirdoonka qaranka. marka labaadna barashada Amiirka Cas waxa ay ka dhigatay furo ay si sahal ah ugu furato kadin kasta oo ay u baahato si ay xog uga soo hesho. meelo aanay abidkeed gaadhin oo ay xogo muhiim ah Israa'iil uga soo heshay ayaa ay barashadan ka faa'iiday. waxa ay kalsooni ka heshay mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta oo sababta Amiirka Cas ku aaminay, waxaanay gaadhay heer ay xiriir barasho iyo galaangal u yeelato hogaamiyihii Falastiiniyiinta Yaasir Carafaad. laakiin guuldaradii ay markii dambena eeday barashadan laftigeeda ayaa gaadhsiisay Amiirka Cas oo ka faa'iidaystay qaladaad sirdoon oo ay Aamina al-Mufti samaysay, waxaana uu fashiliyey Aamina oo weli aan sawir rasmi ah ka qaadin. laakiin arrintaasi markan warwar badan kuma haynin Mossad. waxa ay ku kalsoonayd Aamina, sidaasi awgeed waxay u arkaysay in Cali Salaama uu gacanteeda ku jiro, waxaanay ka fikiraysay habka ugu fudud ee loo khaarijin karo. nasiib darro qaladaad sirdoon oo Aamina samaysay ayaa baraarujiyey Amiirka Cas oo dadka yaqaana ay ku tilmaami jireen inuu lahaa dareen sirdoonnimo oo dheeraad ah. inkastoo ay Aamina isku dayday raadgadasho iyo xitaa baxsasho, gacanta ayuu ku dhigay. ciqaab dheer oo 5 sano ah kadibna waxa uu dhaafsaday maxaabiis tiro badan oo ahaa Falastiiniyiinta Yuhuudda u xidhnaa.